الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على زين الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان أما كتاب كان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كشي كان هاي إن شاء الله كبه شوعا. wuxuu noo joogay kitaabka. waxaan kasoo sheekay in nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay oo amray inuu la jahro dacwada dadka ugu yeerahayo diinta. markaas ayay gaaladii ku kaceen oo dhibaatooyin badan ayay nabiga sala allahu calayhi wasalam u geysteen. waxayna ku dhiiradeen oo isku dayeen nabiga sala allahu calayhi wasalam inay dhibaan oo dhib iyo col iyo colaadin ay ula banbaxaan nabiga sala allahu calayhi wasalam. halkaas ayuu kitaabka noo joogay. washtadda waxaa darnaaday yidhi sheekha cala almuslimiina, muslimiinta waxaa ku darnaaday dushooda albalaa-u balaayadii. muslimiintii waxaa ku darnaaday balaayadii. dhibkii ayaa kusii batay muslimiintii. markuu dhibka kusii batay muslimiinta ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi tafaraquu fi lardi fa ina allaha sayajmacukum. wuxuu yidhi dhulka ku kala tago ayuu yidhi dhulka ku kala taga, ilaahay ayaa idinku mid doonee. markaas ayaa waxay weydiiyeen dhanka ay aadahayaan. markaas ayuu nabigu wuxuu u ishaaray ardul xabasha, halkaas aado ayuu yidhi. halkaas ayaa waxaa ka taliyo boqor caadil ah oo dadka agtiisa jooga aan lagu dulminayn. marka halkaas ayuu nabiga sala allahu calay wasalam u dardaarmay. fahaajaruu markaas ayay waxay usoo haajireen muslimiintii fii sanati 5 sanadii 5aad diinta iyadoo jirto 5 sano ayay waxay usoo haajireen ila naaxiyati najaashiya, jihada iyo dhanka annajaashi loo nisbeeyey meesha uu ka taliyo najaashi, boqor najaashi, boqorkaasoo kasoo baxa ardul xabash dhulkii laysku dhihi jiray oo geeska afrika ah ayaa waxaa la dhihi jiray najaashi. marka halkaas ayay usoo hijroodeen hijrada koowaadna saxaabada ardul xabash usoo hijrootay tiradooda waxay ahayd 10 rag ah iyo 5 haween ah ama 5 dumar ah. 11 waa la yihahdaa, 11 rag ah iyo 4 haween ahna waa la yihahdaa. waxaa ugu cadcadaayay saxaabadaas ama waxaa hogaaminahayay sayiduna cuthmaan ibnu cafaan. waxaa sidoo kaleeto hijratul uulaa ku jiray, khilaafna oo ka jiraahe, jacfar binu abi daalib radiallahu canhum. nebiga gabadhiisii ruqaya oo sayiduna cuthmaan xaaskiisii ahaydna way ku jirtay. marka 15 ayay ahaayeen ardul xabasha hijradii koowaad saxaabadii usoo hijrootay. waxayna amiir ka dhigteen iyo hogaamiye cuthmaan ibnu madcuun saxaabiga la yihahdo radiallahu canhu. sidaas ayay marka doon kusoo kareysteen. markaas ayay imaadeen ardul xabasha. meesha ay kasoo degeen waa laisku khilaafay, jabuuti ay kasoo degeen ayaa la yihahdaa, jabal oliyaa dekada la yihahdo ama casmaro oo eritrea ah. markaas ayay soomaaliya diinta soo gaartay. 5 sano ayadoo ayay jirta ayay soo gaartay weyaan. waa iyada oona gaarin magaalada madiino ayay soo gaartay. hijro kale ayaa jirtay sidoo kaleeto, hijratul xabasha al-uulaa athaaniya la yihahdo, hijratul xabasha athaaniya, hijradii xabashada ee 2aad. xilligaasna ama hijradaas raggii ka qayb qaatay, dadkii ka qayb qaatay saxaabada ahay waxay gaarahayeen tiradooda waxay gaaraysaa ku dhawaad 83 rag ah iyo 18 ama 18 haween ah.
ayay gaaraysaa weeyaan hijradii labaad ee saxaabada usoo hijroodeen ardul alxabasha. oo waxaa ku jira hijrada labaad dad badan oo yeman joogeen, oo abuu muusa al ashcari saxaabiga weynka ayaa kamid ahaa weeyaan. iyo rag badan oo ashcariyiin la yihahdo. marka sidaas ayay ahayd weeyaan. sanadkii oo shanaad ayay usoo hijroodeen ardul xabasha. nabiga markii la dhabay marka waxaa ilaaliyey ama waxaa u dhimriyey caleyhi nabiga camuhu adeerkiisii abu daalib ahay. abu daalib ayaa nabiga marka ilaaliyey. oo gaaladii xataa mar ay ku dhaheen nagu soo wareeji wiilkan, wiil ayaan ku siinanaa, wiilkaas korso. markaas ayuu wuxuu ku yidhi arrintiina waa arrin la yaab leh, caqliga ayaa la aadihiin, ma wiilkayga ayaan kusoo wareejinaya asaad dilaysaan. markaas ayaa wiilashiina kamid a inaa idiin koriya aa rabtiin, ilan korriye muu ka rabaa hadii wiil la siiyo soomaa, in koriyaa la rabaa wiilka. marka uu ka diiday weyaan, saa nabiga difaacay marka ilaaliyey. fahaabahu waxaa ka heebeystay oo ka cabsooday abu daalib kullun mid kastoo min alqowmi qowm kamid, dadka dhan waa ka cabsoodeen. wataxaamaahu wuu ilaaliyey weya, nabiga ayuu ilaaliyey weeyaan abu daalib. wafurida caleyhi nabiga waxaa lagu waajib yeelay qiyaamu bacdin, qeyb kamid a inuu istaago habeenkii. qiyaamu bacdin qeyb istaagideeda, qeybtaaso min asaacaati leeliya, habeenka saacadihiisa kamid a. habeenka saacadihiisa in wax kamid a inuu istaago nabiga oo salaatuleyl la imaado dee ayaa lagu waajib yeelay. uma kabacdi numsika waa la nasakay biqowli ayaa lagu nasakay ilaahay qowlkiisa uu yidhi tacaala sareeye faqra uu aqriya maa tayasara minhu, qur-aanka waxa ka fudaado wix idin fudaado. waaqiimu salaad, salaadana dukada, salaadana oga. waaqiimu salaad, salaadan oga. ayadaas qur-aanka ayaa lagu nasakh marka salaatuleylkii oo habeenkii la istaagahaya. sidaas weeye marka. waaqiimu salaadan waxaa loola jeedaa dee salaada oo shanta oga weeyaan. oo awal salaatuleylka ayaa nabiga lagu waajib yeelay weya inuu dukado. markaas salaada lama soo dejin sooma, salaadaha nabiga intaa la dhelmin ahayd ka hor, salaadahan shanta salaadood nabiga laguma soo waajib yeelay. wafurida caleyhi haddana waxaa lagu farad yeelay nabiga ragcataan, laba ragco. laba ragc ayaa haddana nabiga sala allahu calay wasalam lagu waajib yeelay bilqadaati oo dukanahayo aroortii iyo subaxdii, iyo ragcataan laba ragco bilcashii galabtii oo dukanahayo. laba ragco galabtii, laba ragco subaxdii ayaa nabiga haddana lagu waajib yeelay inuu dukado. sidaas weeye. uma intaas kabacdi nusika waa la nasaqay weeyaan, labadii ragco subaxdii iyo labadii ragco galabtii waa la nasaqay biiijaabi salawaati ayaa lagu nasaqay, salaadihii waajibintoodii weeyaan. waajibintoodii in la waajibiyo, salaadihii waajibintoodii ayaa lagu nasakhay. salaadihii alkhamsi shanta ahay fii leylati masraahu, nabiga habeenkii la dheelminahayay la waajibiyey. salaadahaas habeenka nabiga la dheelminahayay israa walmicraaj ayaa salaadaas lagu soo waajib yeelay. marka habeenkaas shanta salaad nabiga lagu soo waajib yeelahayay ayaa wixii nasakay ama waxaa lagu nasakay labada ragco oo subaxdii iyo labada ragco galabtii oo duka jira awal. sidaas weeye. wamaata waxaa dhintay marka abu daalib ayaa dhintay fii nisfi shawaalin, shawaal kale barkeeda ayuu dhintay weeyaan. bisha shawaal la yihahdo ama soonfur la yihahdo, soon ka dambeyso kala barkeedii ayuu dhintay abu daalibkii nabiga difaacahayo. oo min caashiril bicthati kamid a, bishaas oo shawaalka waxay kamid ahayd nisfu shawaalka sanadkii 10aad. min caashiril bicthati, soo saaridda nebiga sanadkeedii 10aad. marka nebiga 10 sano oo nebi ahay, sanadkii 10aad markii la marahayay bisha shawaal kala barkeedii ayuu dhintay weeyaan abu daalib. wacadumad waxaa weynaatay bimowtihi, bisababi mowtihi, abu daalib geeridiisa darteed waxaa la weynaatay alraziyatu, musiibadii iyo dhibaatadii muslimiinta lagu hayay ayaa markuu abu daalib dhintay way sii weynaatay weeyaan.
sidaas weye marka waa sii weynaatay dhibaatadii. wacadumad waxaa weynaatay bimowtihi, dhimashadiisa waxaa la weynaatay abidaalib alrasiyatu musiibadii. watalad haddana waxaa la xiriirsatay oo raacday khadiijatu khadiijo. khadiijo ayadana waa dhimatay weeyaan. khadiijo ayaa la xiriirsatay weeyaan radia allahu canha bacda 3 ayaamin 3 maalin ka bacdi. bacda 5 waa la yidhi 5 maalinna waa la sheegay oo fii ramadaan. sidaas weye marka 3 beri ka bacdina ama 3 maalmood ka bacdi waxaa dhimatay ama geeriyootay khadiija oo ayadana ahayd garab ayay nebigu ahayd weye, qof ganacsata ayay ahayd weye. inkastoo dhibaatadii markii nebigii saxaabadii iyo ama nebiga qaraabadiisii lagu soo wadi ridayba ayaga dhanba dhibaato ay gaartay oo heer ay gaareen waxay cunaan ay waayaan oo geedaha caleemahooda iska cunaan. sidaas weye marka. laakiin ayadana waxay ahayd qof nebiga aada iyo aada diinta fidinteeda ugu caawisa ayay ahayd weeyaano. oo nebiga garbihiisa garab ka mid ayay ahayd wey. washadda albalaa-u balaayadii wuxuu xiray cala muslimiina muslimiinta dushiisa wuxuu ku xiray curaahu mareegtiisii. oo balaayadii ayaa waxaa lagu shabahayaa sida xarigga camal, xarigga ama qoolka oo lagu xiro weeyaan xoolaha iyo ayaa lagu shabahayaa balaayadii. marka balaayadii ayaa kusii darnaatay weeyaan ayaa loola jeedaa, meesha ugu dambeysay ayay gaartay balaayadii. sidaas weye marka waqacad waxay riday qurayshun quraysh bihi nabiga waxay ku riday sala allahu allahu naxariisiyaadi caleyhi dushiisa wasalam allah nabadgeliya. nabiga waxay ku riday quraysh kulla adiyatin dhib dhammaantiis ayay ku riday weeyaan. quraysh weye nabiga si xun ayay u dhibeen weeye kufaaru qurayshin markii khadiijo dhimatay weeyaan bi3 ashhurin 3 bil ka bacdi. wa ama nabiga wuxuu u qasday oo aaday adaa'ifa daa'if ayuu aaday weeyaan, xaggaas dhulkaas daa'if la yihahdo. yadcuu xaala u yeerahayo haqiifan qabiilka haqiif la yihahdo, qabiilka halkaas dego haqiif la dhihi jiray. asagoo nabiga diinta ugu yeerahay ayuu halkaas u baxay weeyaan oo magaalada maka ayuu ka tegay. falam yuxsinuu ma aynan wanaajin weeyaan ahlu daa'if iyo qabiilkaas halkaas dego haqiif bilijaabati ajiibid. falam yuxsinuu ma wanaajin weeyaan qiraahu nabiga sooridiisii iyo martiqaadidiisii bilijaabati ajiibid iyo aqbalid kuma aynan wanaajin weeyaan. inay aqbalaan nabiga martiqaadkiisii iyo arrintaas lagama helin weeyaan. nabiga inay marti qaadaan meesha laga rabay wax kale ayay nabiga ay kusoo dhaweeyeen wey. marka waa kana marka kitaabka ay sheegaya. wa aqrow waxay ku booriyeen bihi nabiga waxay ku booriyeen assufahaa kuwa dabaalada ah, dadkoodii dabaalada ah ayay ku direen weye, iyo wal cabiida addoomadii. fasabuuhu waa caayeen weye marka way caayeen nabiga ayay caayeen bialsinatin ayay ku caayeen weye carabo oo badiyatin xunxun ama sariig la-aan ah. carabo oo sariig la-aan ah oo xishood la-aan ah ayay ku caayeen weye nabiga sala allahu caleyhi wasalam. waramowhu way gameen weye nabiga waxay ku gameen ay ku tuureen bilxijaarati ay ku gameen weye dhagaxiin nabiga ayay tuuriyeen weye marka xataa khudibat ilaa laga dharoobay ama laga cilaamiyey nacalaahu nabiga labadiisa gobood bidimaay dhiig ilaa laga dharoobay sidii cilaanka camal loo mariyay camal dhiig oo nabiga si waxaa u tuuriyanahayeen ayay nabiga dhiig cagihiisa ayaa ka imaada weyaan. nabiga cagihiisa ayaa dhiig ka imaada weyaan. sidaas marka dhiigga nabiga markay tuuriyaan oo kaleeto madaxa iyo meelahaas markuu dhagaxa u dhacaan nabiga dhiigga waa gacantiisa u ilaalinaya weya dhulka hadduu ku dhaca waa la ciqaabahaya soomaan waa la ciqaabahaya. marka nabiga ayaka ay u naxariisanaya saas ayakana u galahayaan wey maanta dhan ayay tuuriyanahayaan oo daqrahayaan. sidaas weye marka si xun ayay u galeen weye marka
sidaas wey marka wakaana waxaa idaa laqatu lxijaaratu marka dhagaxiinta nabiga ku dhacaan la kulmaan qacadda ila arday ayuu fadhiisanaya weya marka dhulka ayuu fadhiisanaya nabiga weya marka nabiga waxaa la socday weyaan zayd ibnu xaarisa ayaa la socday weyaan asigana sidoo kaleet waa la daqray wey madaxiisa ayaa la daqray wey marka madaxiisa ayaa la daqray weyaan sidaas weeye uma intaas ka bacdi caada nabiga sal lla ly slam oo soo laabtay nabigu oo soo laabtay ilaa makata ayuu usoo laabtay mako xasiinan xaal oy mid murugsan asagoo la murugeeyay nabiga oo murug ka muuqato fasa'alahu nabiga waxaa weydiiyey malakuljibaali buuraha malagoodii malaga buuraha ku shaqada leh ayaa nabiga wuxuu weydiiyey fii ihlaaki ahlihaa daa'if ehelkeeda iyo dadka degan inuu halaagidooda ayuu weydiiyey marka waa halaagayaa dadkaas ahalkii dawil casabiyati ama dawil casbiyati qabiilka iyo qabyaalada iyo casabiyadda u saaxiibka ahay dadkaas waa halaagahayaa yiri marka ayaka dhan laba buur ayaan dul saarahayaa yiri marka ayaka dhan meeshta ay ku halaagsamayaan yiri marka waxaan ku daboolahayaa yiri laba buur ayaa ku daboolahayaa ayuu yiri marka sidaas wey marka waa abu qubays buurka la yihahdo iyo qacaan laba buur adig labadaas buura ku daboolahayaa yiri marka amar yiri nabi allo laakiin nabiga ma amrin weeyaan faqaala nabigu wuxuu yidhi innii aniga arjuu waxaan rajeynayaa an yukhrija allahu ilahay inuu kasoo saaro min aslaabihim dhabaryaashooda man yatawallaa diinahu waa ilahay diintiisa qof tawaliya oo ilaahay caabudo ayaa loola jeedaa ilaahay qof caabudo oo ilaahay diintiisa qaata inuu ilaahay dhabaradooda kasoo saaro nimankan saas ii gale ayaan rajeynahayaa yidhi nabiga marka waxaa kamid ahay khaalid ibnu waliid ayaa kamid ahaa weye marka ilan aabihiis waliid binu muqiiro ahay ninkii gaalka weynaay ahay oo ilaahay qur-aanka oo ku sheegay weye marka tilmaamo badan xun oo leeyahay iyo ilaa ilaahay oo ka hadlay xataa sida uu ku calool gala weeyaan marka inuu yahay wacal ayuu xataa ilaahay qur-aan ku sheegay weyaan suuraddan nuun ama suuratulqalam ayuu ilaahay ku sheegay marka khaalid bin waliid oo aad taqaanaan ayaa kasoo baxay weyaan dhabarkiisa weyaan ninkaas aada iyo aadka diinta islaamka u difaacay oo gaalad badan laaya ayaa kasoo baxay weya marka ilaahay waxaa ka rajeynaha yiri nabiga inuu ilaahay kasoo saaro dad ilaahay diintiisa dee qaato ilaahay caabudo ayaan ka rajeynahayaa yiri marka ila nabiga raxiim ayuu ahaa nabiga raxmad ayuu ahaa nabiga socoto ma dhihin wey nabiga hadduu annaga camal ahaa lahay wuxuu dhihi lahay war ku dabool labada buur ku dabool dhihi laakiin ilaahay ayaa nabiga wuxuu ka dhigay naxariis socoto soo maaha wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ilaahay ayaa qur-aan ku yiri marka iyo fabimaa raxmatin min allahi linta lahum oo kaleeto iyo ra-uufun raxiim ayaa ilahay ku tilmaamay weye mid ra-uuf oo dhimrin badan oo raxiima oo naxariis badan ilahay magaciisa wax kamid ayaa nabiga lagu tilmaamay ilahay magaciisa ra-uufa kamid a raxiima kamid a nabigaa lagu tilmaamay soo maha marka qof aada iyo aada nabiga wuxuu ahay u naxariis badan ayuu ahaa weye marka caطir allahuma qabrahu lkariim bicarfin shadiyin min salaatin watasliim allahuma salli calaa sayidina maxamed ali sabi sl ilaah nagu anfaco halkaas ayaan kusii maanaa insha allah waxaan ku xigi doono dheelmintii nabiga sal ly slm dheelmiyey waa lasii faafiyey insha allah kheyrkii dadka lala wadaago ilaahay nagu anfaco nabiga jeceelkiisa ilaah na siiyo billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu